assalaamu calaykum daawade barnaamijka maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah dadkii dunida ugu xigmadda badnaa. inta aanu gudagelin barnaamijkeena maantana fadlan walaal riix subscribe-ka oo furo gambaleelka si aad ula socoto wanaagyada aynu hawada ku soo marin doono. alla kor ahay wuxuu quraankiisa ku yiri bismillahir rahmanir rahim ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. waxaynu siina luqmaan murti ee ilaahay ku mahadnaq. qofkii rabbi u mahadnaqa uma mahadnaqo naftiisa mooyee ka rabbi ku gacan seera oo aan u mahdin alla kor ahay waa mid ka deeqtoon oo cid mahdisaa waa ay badan tahay. luqmaan oo magaciisu yahay luqmaan ibnu cawr ibnu suudaan waxaa sidoo kale taariikhyahanadu sheegaan inuu magaciisu ahaa luqmaan ibnu thaaraan, inkastoo ay culimmadu isku khilaafeen inuu ahaa nebi iyo inuu ahaa addoon. waxayna culimmadu u badan yihiin inuu ahaa addoon wanaagsan, waxaana lagu naanaysaa luqmaanul xakiim. waxaa la sheegaa in nebi ayuub walaashii ay dhashay, culimmada qaarna waxa ay yidhaahdeen maye habaryartii ayaa dhashay. luqmaan waxa uu ahaa nin faqiira oo aan xoolo badan lahayn, waxa uuna ku noolaa magaalo la dhaho nuuba kuna taalo koonfurta waddanka masar. waxa uu ahaa nin muuqaalkiisu yahay mid liita jir ahaan balse dhisan maskax ahaan. alla subxaanahu wa tacaalana waxa uu ku galaday xigmad iyo aqoon aad u sarraysa. alla subxaanahu wa tacaala waxa uu sare yeelay luqmaan xigmadihiisa, wuxuuna caan ka noqday magaaladii uu ku noolaa. maalin maalmaha ka mid ayaa nin uu ari u raaci jiray yidhi, soo adigu ma tihid inankii hebel ee arigii ilaalin jiray? markaas ayuu luqmaan ku jawaabay haa. markaas ayuu ninkii yidhi, sidee ayaad ku soo gaartay heerkan oo ah murti ku hadalka iyo hadal macaanta? luqmaan ayaa ninkii ugu jawaabay, doonista alle, gudashada ammaanada, runsheegidda iyo ka tegidda waxyaabaha aan faa'iidada lahayn ayaan ku soo gaaray heerkan. sida ay sheegaan taariikhyahanada islaamka, maalin maalmaha ka mid ayaa nin hor istaagay luqmaan waxa uuna ku yidhi, adigu soo ma tihid luqmaan? waxa uu luqmaan ugu jawaabay haa waa anigii. ninkii ayaa yidhi, luqmaankii raaci jira ariga ee madowaa ma adiga? luqmaan ayaa yidhi, madowgaygu waa mid iska muuqdee, maxaa kaga yaaban tahay arrinkayga? ninkii ayaa ugu jawaabay, dadku waxa ay kor yeelaan hadalkaaga, waxa ayna taagan yihiin albaabadaada, waxaana raaligelinaya oraahdaada. markaas ayuu luqmaan ku yidhi, walaalkaygiyow, haddii aad samayso wax aan kugu odhanayo adigu waad noqon sidaa oo kale. ninkii ayaa yidhi, waa maxay waxaasi? luqmaan ayaa ugu jawaaba ninkii, araggayga oo aan laabay, carabkaygii oo aan ka adkaaday, calooshayda oo aanan dharjin, farjigaygii oo aan dhowray, ballanta oo aan ilaaliyey, martidayda oo aan karaameeyey, dariskayga oo aan guday xaqooda, iyo ka tegidda aan ka tegay waxyaabaha aan faa'iidada lahayn. intaan oo idil ayaa ah intii aan ku gaaray heerkan. luqmaan waxa uu ahaa nin aan hadal badnayn, deggan misana aragti dheer, ra'yi togan, weligiina maalin ma uusan hurdin, mana la arag weligii isagoo qof la doodayo, xamanayo ama xitaa la qoslayo. meelna ma uusan tegi jirin ilaa haddii uu tagana xigmad ayuu halkaa uga tegi jiray. luqmaan waa uu guursaday, waxaana loo dhala carruur. qaarkood hortii ayay dhinteen, mana uusan u ooyin, waayo wuxuu ogaa inay geeridu tahay sunno uu rabbigeen u jideeyey koonkiisa. luqmaan wuxuu caan ku ahaa xigmad iyo aqoon, waxaana sharaf ugu filan inuu rabbigeen qur-aankiisa ku xusay, welibana suuraddan ayaaba lagu magacaabay isaga. luqmaan inuu ahaa murtiile tusaale waxaa inooga filan soona qaadanaynaa dardaarankii uu eebbe qur-aankiisa ku xusay oo uu siiyey wiilkiisa. alla subxaanahu wa tacaalana waxa uu qur-aankiisa ku yidhi, وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. xus waqti uu luqmaan oo la dardaarmay wiilkiisa ku yidhi, wiilkaygiiyow alla waxa la wadaajin, waayo shirkigu waa dulmi weyn. sida aynu aayaddan ka fahmayno, luqmaan isaga oo la dardaarmay wiilkiisa waxa uu faray inuu alla keligii caabudo oo aynu cid ku lamaanayn, kana dheeraado shirkiga iyo cid kale in eebbe lala wadaajiyo. arrinkan ayaana ah arrin aad u muhiim ah, waxaana looga baahan yahay qof kasta oo muslima inuu ku baraarugnaado, sababtoo ah haddii qofka muslimka uu galo dembi ama macsi, waxaa dhici karta in alla subxaanahu wa tacaala u dembi dhaafo maalinta qiyaamo. laakiin in eebbe cid kale lala wadaajiyo waxa ay keenaysaa inuu ruuxaasi galo cadaabta kuna waaro. habeen ka mid ah habeenada ayaa wiilkii luqmaan waxa uu weydiiyey aabbihii su'aal la yaab leh, iyagoo weliba dul saaran doon. waxa uuna yidhi, aabbe, haddii aan tuuro dhagaxan yar kuna tuuro badda, miyuu ilaahay og yahay arrintan?
haddaba luqmaan waxa uu ugu jawaabay inankiisii sida uu rabbi subxaanahu wa tacaala inoogu sheegayba qur-aankiisa يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يات بها الله إن الله لطيف خبير wiilkaygiyow hadday xumaantaadu tahay xabad qardal ah oo kale kuna sugan tahay dhagax dhexdii ama samooyinka dhexdooda ama dhulka dhexdiisa wuu keeni eebbe waa uga xeel dheer sidoo kale luqmaan waxa uu ku yidhi inankiisa يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور wiilkaygiyow og salaada waxa wanaagsanna dadka far waxa xunna ka reeb adkayso oo ku sawir waxa ku soo gaarayo oo dhib ah arrimaha aan ku farayo waa arrimaha kamakacdada ah oo lama huraanka ah haddii aan si qoto dheer u fiirinana aayaddan luqmaan waxa uu faray wiilkiisa inuu oogo salaada ma ahan oo keliya inuu dukado ee waa inuu u oogaa siduu rabbigeen u jideeyey isaga oo ilaalinaya shuruudaha iyo arkaanta ay leedahay salaada welibana dhigaya mid weliba halka loogu talagalay sidoo kale luqmaan waxa uu faray wiilkiisa inuusan marnaba ka aamusin xumaha uuna wanaagga dadka gaarsiiyo uuna ku sabro dhib weliba oo soo gaarayo marka uu xumaha dadka ka reebayo iyo markuu wanaagga gaarsiinayaba sidoo kale luqmaan waxa uu ku yidhi wiilkiisa ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور hamaroorinin oo ha ka jeedinin dhabankaaga dadka hana socon dhulka adigoo isjejabinayo waayo rabbi ma jeclo mid weliba oo kibir badan misana faan badan haddii aynu fiirino aayaddaana luqmaan waxa uu faray wiilkiisa inuu lahaado akhlaaq wanaagsan hagaajiyana la dhaqanka dadka uuna ixtiraamo qof weliba asigoonan u eegayn midab ama dhalasho uunan ka jeedin wejigiisa dadka weliba isagoo kibir ku dheehan tahay waayo eebbaweyne ma jeclo mid kasta oo isla weyn misana faan badan sida uu nebiga sallallahu calayhi wasallam inoo sheegayna kibirku ma ahan inaad xirato maryo qurxoon ama aad yeelato hanti laakiin kibirku waxa weeye xaqa oo aad diiddo iyo dadka oo aad yeestid sidoo kale rabbi subxaanahu wa tacaala isagoo ka sheekaynaya luqmaan dardaarankiisii uu siiyey wiilkiisa waxa uu qur-aankiisa ku yidhi واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير socodkaaga dhexdhexaadi codkaagana kala haki codna waxaa loogu neceb yahay codka dameerka haddii aynu si qoto dheer u fiirinana aayaddan micnaheedu waxa uu noqonayaa ha u socon si gaabis ah oo cagajiid ah hana ordin adigoo socodka aad u dheeraynaya laakiin socodkaagu ha noqdo mid dhexdhexaad ah sidoo kale ma wanaagsana codka aadka u dheer ee qaylada ah codkana waxaa u wanaagsan inuunu dheeraan aadna uunan u gaaban isna uu ahaadaa mid dhexdhexaad ah daawade barnaamijkeeni maanta oo aan uga hadlayna luqmaanul xakiim xikmadihiisa rabbina uu ku sheegay qur-aankiisa halkaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa haddii uu rabbi raalli ka noqdana waxaynu ka soo diyaarin doonaa qayb kale oo ah xikmadihii uunan rabbi subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku sheegin ee fadlan walaal janalka faafi oo gaarsiiya asxaabtaada inta aan barnaamijkan oo kale amaba ka qiimo badan ku wada kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim